oo diintu ay noo tilmaantay cudurro inay jirayaan cudurrada faafana si gaara loo tilmaamay oo hore u dhaceen oo maalan xilli hore yani daacuun intuu dhacay uu ka mid yahay cudurrada dadku ay isqaadsiiyaan habka looga hortagayana hab markaas xilligii la joogay u qalantay ay ahaydoo yani dadka meelaha ay joogaan inay joogaan oo ayna ka bixin kuwa ka baqan ee bannaanka jirana inayna soo gelin ay isticmaaleen hadda uu ka duwan yahay cudurkani cudurkii daacuunka waa cudur ka khatarsan faafitaankiisu u faafayana ay ka orod badan tahay sidii kii hore u faafayay taasna ay keentay berigii hore gaadiidka la isticmaalaya isgaaritaanka dadku ay koobnaayeen ama gaadiidku ahaa xayawaanaadkan sida geelo oo kale ah oo si intuu magaalo uga baxo magaalo kale u tago safarku wax badan uu qaadan jiray laakiin hadda teknolojiyada casriga la gaaray iyo diyaaradaha iyo tareenada iyo qalab waxyaabahan dheereeya ee bini aadamka ilaahay uu u sakhiray ayaa waxay keenayaan cudurkii meeshuu ka dhacay haddii ay dadkii ay isdhex maraan in uu si deg deg ah oo ugu faafo marka waa arrin runtii xanuun weyn ku haysta bini aadamka oo dhan oo caalamka islaamkuna bini aadamka wixii dhibaayo o dhan dhibkiisa ayuu yahay oo rasuulkeena sal alla alay wasalam waxaa loo soo diray in ay dhibaysay ama uu dhibsanayey waxyaabaha dadka dhibaaya oo ilahay uu yidhi laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum yani way ku adag tahay wax idinka idin dhibaaya mashaqadiina yani inay wax idin gaaraan wuu dhibsanaya marka diinteena waa diin sidaas oo naxariis badan oo dadku inay caafimaad qabaan ku dadaalayso oo wasaaisha kulba markaas heli karaan in la isticmaalo ay diintu inoo ogasho digtoonaada cudurkaas cudur aan yani la tacaali karna maaha laa samax allahu hadduu waddankeena uu ka dhaco biyo intayna ku soo gaarin ayaa la iska moosaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj kahortagaa ka fiican daaweynta ayaa la yihahdaa marka xaalad innaga hadda waxaynu ku sugannahay kahortag ah oo isjiraay dadkii la leeyahay ilaahayna ma gaarsiiyo xaalad aan daaweeye iyo daawo xaggeen uga helnaa taas allah inaga hayo horta innagu waa inoo sii jirtayba oo yani maalan hadda hala farxasho gacmaha la iska dhaqo ayaa ka mid a waxyaabaha qayb ka mid waxyaabaha wacyigelinta lagu sameeyo innaga qur-aankeena mar hore inoo yiro yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum waaydiyakum yani xubnaha inta muuqda oo lugaha iyo gacmaha iyo wejiga inta muuqatee dharka banaankiisa inaan mar walba dhaqnaaba waxay inoogu jirtay nolol maalmeedkeena caafimaadkuna hadda inuu ku baraarugay ahmiyada ay leedahay gacmaha in la dhaqdo waxay sii xaqiijinaysaa xaqnimadka islaamka oo hadda su-aal imaanaysa ah islaamku isagoo una corona jirin yaa dadka raacsan wuxuu ku waajibiyey salaadaha shanta ay tukanayaan inay yani ay weysaystaan oo weyse la-aan salaadi ma ansaxayso marka si markii loo yidhahdo way inagu soo dhaceen hawshii innagaan horey u haynay ayay inagu soo dhaceen marka ma dhahayna maxaad noogu soo dhacdeene waxaan leenahay marka horeba idinkaan idin kari la-ayne in wejiga la iska dhaqo gacmaha la iska dhaqo la isnadiifiyo waxyaabahaasoo dhan innaga diinteena ka mid tahay markii suurat ulmaa-ida aayadda weysada ilaahay uu ka hadlaayey wuxuu ku yidhi maa jacala calaykum macnaa xaraj ilaahay ma raba inuu idinla yeelo walaakin yuriidu liyudahirakum wuxuu rabaa inuu idin nadiifiyo marka liyudahirakumtii oo waaqicii ay noqotayba oo dadkao dhan ay wada sheegayaan oo hadda markii kambayn ka soo horjeeda karoonaha la samaynayo ama siyaasiyiinta ama dadka bulshada magaca ku leh waxaad arkaysaa ayaga oo musqulihii intay yani galeen saabuuntii soo qaateen biyihii isku furaaya saan ha loo faraxasho saas yani marka hawshii aan horey u haynay oo culimmada ay hayeen diintu ay sii sheegaysay ayaan garab u helnay ayaa la dhihi karaa marka ilahayna aan uga mahadinno marka horeba ilahay inuuna sii waafajiyey inta ay ka maqnaydna aan ku baraarujinno war nicmadan aan haysanay idinkana nicmadan nala arka meesha looga badbaadi karaa cudurrada iyo waxyaabaha lamidana diinteenu waa diinta sidaas oo marka horeba uba soo degtayba waxay u timid ay tahay inay dadka u ilaaliso naftooda oo wax kasta oo nafta dhibaato ku ana waa xaaraan wax kasta oo nafta ilaalinayana waa badbaado oo waa loo bahan yahay in la sameeyo waxay tahay xaaladii hore ma ah hadda ka hora waxaa la yidhi nina wuxuu noo xirxiro qur-aanka noo akri libaax baana dadka dhibi jiray oo ka cabsan jireen markaas libaaxiya marka wuxuu ku akriyaa inuusan imaanin alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi ilfiil libaaxiya hal mar si deg deg oon la filaynin ayuu ooda usoo jabsaday soo ordaya marka oo dadkii soo dhexgalay ayaa la arkay markaasaa mid soo ordoolay war alamtara ku akri war alamtara ku akri markaasuu adeer libaaxu alamtara wuu soo dhaafay wuxuu u baahan yahay qabash u baahan yahay in la iska celiyo marka hadda waxay taagan tahay corona alamtara wuu soo dhaafay waxay taagan tahay qof walbow si dhaba intaad u qaadatid ilaahay haynaga haayo ilaahay awooddiisa ayaa lagu celin karaa qof walba wixii uu ka qaban karo iyo suu isaga ilaalin karo iyo mushkilada xalkeeda waxaa la horta waa in la dareeme dad badan oo ka mid a dadkeenu xataa mushkilada ma dareensano haddii la yihahdo corona jira oo noocaasa jirta wuxuu leeyahay war adeero iga leh waxaas gaalada laga sheegaaye
annaga naguma dhacaaye muslimaan nahay hadhow markuu ku dhacana uu qaylinayo wuxuu leeyahay qandho adag ayaa i hays marka qandhada adag intayna ku qabanin ka hor hadda waxaa lagu leeyahay wixii keeni lahaa qandhadaas iska ilaali inkastoo hadda yacni dhibaatadan ay dhacday duruus badan ay ku jirto ay tahay in dhinacyo kaleba laga eego oo dadka toobadkeenkooda iyo dembiyada ay sameeyeen ay ka noqdaan iyo waxyaabo kadana yani looga baahan in laga wacyigeliyo haddana yani toobadaas iyo istikfaartaas iyo allibarigaasna ha lagu dadaalo waxyaabaha lagu talinayo ee caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay sheegayaanna bulshada soomaaliyeed waa inay qaataan intaasoo dhan waxaa loo yeelayaa maslaxada dadka iyo dalku inay hagaagaan